dhalinyarada gobolka Mudug ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay ciidamada deegaanka ee ku sugan magaalada Qaydaro ee gobolka Galgaduud. Dhalinyarada gobolka Mudug ayaa deeqda ay gaarsiiyeen ciidamada waxa ay ku tilmaameen inay tahay mid ay ku garab istaagayaan ciidamada. sida ognahay nimankan al-shabaab qawaarijta waa niman aad u dhib badan waa niman runtii aan aqoon qof shacab ah iyo qof maamul ah iyo midna aan kala soocin boqolaal qof oo shacab ah oo waxba aad galabsan dileen marka in la iska dhiciyo runtii qof walba meesha uu joogo wuxuu ka awoodo dagaal inuu qayb uga qaato mudan yahay waan ka warqabaa Qaydaro dhibaatada ay u geysteen iyo wiilasha nooga maqan runtii oo maanta ay nooga dhintay dagaalkaas runtii marka hadii anagu aan jiifano aan reer Qaydaro aan aaminsanahay in dagaalku ka socda Hiiraan ama Galgaduud ka socda in anagu oo soo qayb naga ahayn hadaan aaminsanahay taas ma soconayso. maamulka iyo dhaqanka deegaanka Qaydaro ayaa dhankooda qeexay inay ka go'an tahay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab markay uga jirto raashinka iyo dawada iyo wixii magaalada jira saanada bay ragga ururka dhalinyarada ay ku aadan yihiin waana ka soo baxeen dawadii iyo raashinkii waa keeneen wixii kala kaalmaana waa la garab taagan yihiin awoodooda waa mahadsan yihiin dhamaantood ururka dhalinyarada oo Sidiiq uu gudoomiyaha u yahay iyo waftiga kale la socda Maxamed iyo oo raashin leh oo rasaas leh wax walba lala soo gaari waxaan ka hadlaynaa qawaarijtu waxaan ku maqli jirnaa wadan waxaan ogaanay maanta dalka inay meel walba saqiir iyo kabiir iyo nin Soomaaliya wax u bartay iyo nin shayba iyo ari iyo awr midna inay isaga tageen dal iyo dad ay ka tagayeen aan la arag markii aanu aragnay waa isabaabul waxaan isku abaabulay god iyo geed iyo meesha ay ku jiraan iyo haday Soomaaliya geeska ugu sheegtaan inaan uga daba tagno inaanu rag iyo dumar baabuurta raacna iyaga daraadooda iyo colaadooda waxaan marka raggaas wax noo keenay oo soo abaabulay oo dhalinyarada waxa ay noo keeneen waa uga mahadcelinaynaa